sida qorshahiin oo ahaa oo shantiriska inoogu caddayd waxaan san rabaa inaan kulankii kan ka horeeyey marxaladda koowaad ku saabsanaa aan warbixinta iyo soo jeedimaha wax ka beddelka aanu ku soo bandhignay ayaa dhowr su-aalood oo aan rabaa inaan si deg dega anoo waktiga lumin inaan dul maro 9 xildhibaana baa aaraa halkan ka soo jeedisay oo qaarkood su-aalana weydiiyeen xildhibaan cabdulaahi maxamed cali aa ugu horreeyey isagu afkaaro muhiima ayuu soo jeediyey laakiin su-aal toos ah inama weydiin senator cabdixakiin macali axmed wuxuu na weydiiyey su-aal la xiriirta xildhibaanku waa inuu wuxuu soo jeediyey laftirkiisu xildhibaanku waa inuu heli karo fursad labaad markii toban daqiiqa kuma filnee waa inuu fursad labaad heli karo arrinkaas habraaca oo ah nidaamka aanu isticmaalayno ama xeer hoosaadka aan adeegsanayno markii aan dooda dibeegista dastuurka ku jirno wuxuu jidaynayaa in xildhibaanku uu hadba shintiriska dooda ku qoran ee qodobo mucayin ahee maalintaas ajandaha looga hadlayo inuu 10 daqiiqo leeyahay taas macnaheeda maaha cutubkiiba inay 10 daqiiqo tahay laakiin maalintaas inta ajandaha ku jirta ayuu 10 leeyahay haddii guddoonku uu arko si waafaqsan habraaca in waqti dheeriya la siiyana awoodda guddoonka ayay ka mid tahay waxaa kaloo xildhibaan senator cabdixakiin macali axmedna weydiiyey su-aal la xiriirta sida soo jeedimaha ay ku imaan karaan aan soo jeedimaha oo haddana hor yaalla markii xildhibaanku rabo ama xildhibaano rabaan inay wax ka beddelaan isbeddeladaas xildhibaanadu waa soo jeedin karaan markii la gaaro marxaladda saddexaad si waafaqsan qodobka 5aad fakradda 3aad ee habraaca marka 6 dalool 1 dalool oo 45 xildhibaan oo golaha shacabka u dhikanta iyo 6 dalool 1 dalool aqalka sare oo u dhikanta 9 senator waxay soo jeedin karaan soo jeedimaha hadba ay rabaan nidaamka loo marayo soo jeedimahaasna habraaca ayay ku caddahay xildhibaan kooshin isagu waktiga ayuu dhaliilay inuu yaraan karo arrinkaasna dabcan waa su-aalaha soo noqnoqonayay su-aalaha ugu badan arrinka 10 daqiiqa inay yar tahayna waa ka hadaliyey arrinkaas marka shintiriska iyo waktigoo kooban la xiriira waxaan is leeyahay guddoonka iyo golaha si guud ayaa xal loogu heli karaa wakti mucayina oo inaan doodan kusoo dhammayno aan ku khasbannahay ma jirto hadba sida ay nala gasho ayaa lagu soo gebagabayn doonaa xildhibaan cabdirasaaq xusul wuxuu ka hadlay asagu maqaamka caasimadda muqdisho oo aan doodeedii la gaarin waxaan filayaa dooda maantay oo cutubka koowaad oo qodobka koowaad ilaa qodobka 9aad had su-aashiisu halkaas ayay dhici doontaa doodii maalin hore kama mid ahayn marka su-aashiisa waxaan filaa inuu maantay ama kusoo ceshan doono ama jawaabaheeda maantay iyo su-aalaheedaba la wajihi doono xildhibaan cabdiraxmaan cagoweyne isagu su-aal inama weydiin talooyin muhiima ayuu soo jeediyey xildhibaan yuusuf gabaadiid habraaca ayuu su-aale inaga weydiiyey sida ay codayntu ay u dhici doonto iyo arrimaha mabaadi'da cutubka koowaad ku qoran oo qodobka 132aad wax ka beddelkooda ayuu wax ka beddelkooda la xiriira ayuu wax inaga weydiiyey iyadana cutubka koowaad ee maanta doodoodu furan tahay ayay ka mid noqonaysaa doodii maalin hore kama mid ahayn arrimaha wax ka beddelka mabaadi'da la xiriira cutubka koowaad dhan inuu mabaadi' yahay iyo in qodobka 3aad ay mabaadi'du ku kooban tahay su-aasha xildhibaanka waxaan u malaynayaa iyaduna dooda maanta furan oo wax ka doodista wax ka beddelka dastuurka oo maanta furan cutubka koowaad halkaas ayay dhici doontaa xildhibaan maxamed abuukar isaga waktiga in la kordhiyo ayuu soo jeediyey xildhibaan suge isagu su-aal inama weydiin talooyin waa isaguna soo jeediyey waxaan filayaa inaan dul maray si waktiga aan uga faa'iidaysano waxaan u yeerayaa senator siciid cookisi cutubka ajandaheena maantay oo ah inaan bilowno marxaladda labaad
oo qorshaheedu yahay cutubka koowaad inaan ka bilaabno qodobka koowaad ilaa qodobka sagaalaad senator Siciid oo ka horey maahu qodobka koowaad ilaa qodobka sagaalaad oo maantay ajandaha 14 bisha February senator Siciid oo ka inoo dul mari doona kadibna waxaan bilaaban doonaa ilaa waxaan filaa inaan ku soo afmeernay marxaladii koowaad doodii maalin hore qabyada naga ahayd inaan halkaas ku soo afmeernay marxaladda labaadna ay maanta inoo bilaabanayso cutubka koowaadna inooga bilaabanayso waa mahadsantihiin